haddii aad ka mid tahay dadka wejigooda ku leh xagtiimada ama dhaawacyada fudud, muuqaalkan ayaa si kooban kugu sharxi doonaa habka ugu fudud aad iskaga baabi'i kartid dhaawacyada fudud ama xagtiimada adigoo jooga gurigaaga. balse intuusan muuqaalka bilaabanin waxaan kaa codsanayaa in muuqaalka like ii saarto, sidoo kale aad la wadaagtid saaxiibadaada ama qof walbo aad is leedahay uu dagaal jecel yahay wejigiis xagtiimo badan ayaa ka muuqdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal. si aad muuqaalka hordhiciisa ka soo aragtaybo, muuqaalkan waxaan rabaa inaan kugu sharxo wejiga xagtiimada leh ama wejiga dhaawacyada fudud soo gaaray. inta badan xaaladan waxay dhacdaa ama waxay khusaysaa dadka dagaalka badan oo inta badan wejiga laga xagto ama dhaawacyada fudud uu ka soo gaarabo. marka haddii aad ka mid tahay dadka noocaas ah, muuqaalkan si gaar ah ayuu ku anfici doonaa. haddaba si aad iskaga daweysid xaaladan wejiga xagtinta leh ama wejiga dhaawacyada fudud leh, waxaa u baahan tahay laba shay oo dabiici ah oo laga yaabo inaad gurigaaga ka heli kartidbo. number 1 waa in waxaa u baahan tahay wax loo yaqaano aloe vera oo ah kareemka dacarta. haddii aad heli kartid geedka dacartana way kasii fiicnaan lahaydba. sidoo kale waxaad u baahan tahay number 2 huruud. marka huruudda iyo kareemka dacarta ayaad isku qasaysaa, kadibna wejigaaga ayaad marinaysaa. wejigaaga markaad marisid waxaad sugaysaa muddo dhan 20 daqiiqo, kadibna waad ka dhaqaysaa. sidaas ayaad ku wadaysaa maalin walba ayaad wadaysaa 20 daqiiqo kadibna waad ka dhaqaysaa. muddo 2 bil ama 3 bil ayaad wadaysaa. waxaa hubaal ah inaad isbedel dareemi doontid. si aad u heshid fariimo caafimaad oo joogto ah, fadlan ku soo biir page-kayga Facebook ah oo like saar, sidoo kale follow saar. sidoo kale ha iloobin in channelkan YouTube-ka subscribe saarto, notification-kan aad furato si ay kuu soo gaaraan fariimo cusub oo caafimaad ah oo maalinla u baxi doono. anigoo kaaga mahadcelinayo daawashada muuqaalkan, waxaan kuu rajeynayaa khayr iyo caafimaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.